degmada tuli guuleed annaga iskale annagoo jaar sacaale 7 garaad weeye tuli guuleed hal garaad oo xagga xabaalaha ay leeyihiin meel kale ma laha jaar saale nabadda diri dhabo waan soo wadnay nabadii iyaga burburiyay nabaduna way burburtay iyagaana burburiyay gariya jaasa dagaalamaya ceebayba nagu tahay annagu dagaal ma rabnaa nabad baan rabnaa shalayna dagaal bay ku baaqayeen hadday iyagu dagaal ku baaqayeen annagu nabad baan ku baaqaynaa ta u ka yiri jaarsa kaal maalama gaadhay caalamkan tusaynaa annagu haddaan jinacsani ka nimid haddii ree jigjiga ay joogaan hadday ree tuli joogaan gacmahaan isaysanaaye arrimaha gariga ma galle annaga arrimaha iyaga wuxuu ku galayahay waa khalad jaarsaana la yidhaa kaal maalama ahee ninka jaarsa meeshuu doonuu teg xor buu u yahay 12 oday baan ku kala saxeexanay yaa dumiyey heshiiskii iyagaa dumiyey ninka maanta ama jaarsa wax u kala sheegaya ama Mustafa Maxamed cambaaraynayay odayaa saxeexay buu yiri tulli annaga inoo saxeexay buu yiri jinacsanina annaga u saxeexnay buu yiri waxba kama jiraan kuwii way saxeexeen ay lahaayeen iyo kuwii waa bikalaale uu ku lahaa waa wada joognaa waa naga wada fadhina nin cad yaqaan sunbab lagu masabo waxa lagu haystay lagu cambaaraynayaan ayaan garanaynaa marka waxaanu leenahay dadkan in la istajiya quman nabaduna way fiican tahay madaxweynaha dawladda deegaankana waanu amaanaynaa 100% buu mahadsan yahay shalay tole markii tuli joogay la amaanay deema waxa ahayd waad amaanantay reerebal dhulka nooga qaad sheekadu saas ay u dhacaysaa marka shalay la amaanay maantana la caayo waxay noqonaysaa hebelo waanu ku jecelahay reerebal dhulka nooga qaad haddaad laakiin nooga qaad weedana saasa tahay weey ujeedada anagu noocaas ma aragnaa markaan waxaan ku soo gabagabeynaya hadalkayga juqraafi waa wax lagu noqdaa dhul baa wax lagu noqdaa dad baa wax lagu noqdaa beeshan ilaahay baa ballaariyay ilaahay baa ka dhigay beel weyn sidaas oo kale anagu juqraafi kala ku Soomaali oo Soomaalinimada de ma bixiyaan de waxa weeye jinsiyada ma bixiya laba shakhsi oo ka hadlay baalkan dhexdeeda dadka jinsiyad ma siiyaan Mustafa Maxamed Umar saddex shay isma qariso shaqadaadu isma qariso hayntaadu isma qariso quruxdaadu isma qariso waxaan uga jeedaan uga faahfaahinaya Mustafa hawshiis intuu isagu dawladnimada qabtay dibkii badnaa annaga iyo gari naga dhax socday wax badan buu wax ka qabtay nabadan 12 iyo 12 ku soo kala qaadanay tuma jigjiga iyo jinacsan iyo kala gadisan ma tun nabadeed baan soo qaadanano to aan jigjiga intaan reebno jinacsan horeysiino jinacsan jigjiga dambaysiina ma tun nabadan soo qaadanay